حسين أو فرين قابن بأكو قد بنا يا هنا مودين قاف لقى بحي كما جاجحنا بدأ جوحي يواسدي جمعيدي أيله بدأ جوحي واسدي iyo gumciyadii ayle bal gudoomatan ku sida way gun dheer tahay waayahay aadan cali guhadow markii aad geeri noqotay ina mooga liibaan kolku aakhiro u guuray markaasa ilaahay gambiyay guushii nabadeed wadare doori mooge 300 u garanaya inta ku dhimatay markaasa ilaahay gambiyay guushii nabadeed ee gaarida iyo qayladu war markii ay guri suldaan gaadhay waxa lagu gudoonsaday colaad gaagma reebta ah uguba haaruun markan duubiyada gooye giblo iyo ciyaar laguma tumo gacamadii hawd waaya giblo iyo ciyaar laguma tumo gacamadii hawda naagaha gambada tuuraya iyo go'ayda yeedhaysa dhaaxaar rasaas loo gingimay gocashadii niye gaariga agoontii ka badan geedaha baxay bismillah meedkii 300 buu kor u dhaaf gaariga agoonta ka badan geedaha baxay godka seexda reer fiqicigaal goosan baa hadha ee green of ka maran waan la helay gaankii reer caliye ka gudoome reer corow sidii goosan weer halay caliyada goblamay maalin baa loo gargaarsaday reer magan ha gaangaambiye gudubta loola way waraabuhu hagigo jiiso waa galabsigiisii geediga labaad reer wacays waa la gelayaa gaban huruudo iyo koorre iyo garabka iyo caale gaban huruudo iyo koorre iyo garabka iyo caale waa lagu gubtay gulmidgaan lagama guureen gulmidgaanna cidda degi jirtay waa la garanayaa waa lagu gubtay gulmidgaan lagama guureen sidii Golan Heights waaniga geedka weyn dhigay gurmadkii labaad maalintan kugu galaal xoray halka ay dhigo boqol fad saabano muudka koor inaad ma maqasha ma dusha abwan ma maqasha yahay si toos waxa kuuri koob iyo labaad marka ku dhacdo waad la boodaysaa hadal ma leh ay wadiyo qolka hal falow gareeyo waxaad si gaar ah horta halkan uga salaamaya garaad dibcaana waa ku salaamay waar isku keen dambeysay garaadka waa salaamay salaamu laan dheer war waxa kuuri hayan ka qaataa euro sida ilaa 22 iskale bismillaahir rahmaanir rahiim warmadasha dadka kor iyo saaran iyo hoosba saaran ee mujaahido u horeeyo mujaahid mu baxay madaxan saa gacanta uga mariyay aad iyo aad landheera dhalay kaftankii qarniga meesha ka socda boqortooyadii action may go'ay haysaa wallo aad iyo waayahay ka fogaada marka ka fogaada horta akhyaaray waad salaamaya dhamaantiin meel kasta oo waxa weeyaan aad kor iyo hoos aad kala joogtaan kullay waad maqlayseen sida ay maartay magacu ku bilaabmay waayahay boqolaalan mar waxaan sheegay ama mar walba aan sheegaa marka ay wax dhacaan ama moor aan wax samayno waxa weeyaan nimankan gabay aan hufnayn ama aan waxa weeyaan waaqici aan ku fadhiin ina ay waxa weeyaan ay tiriyaan hadda marka gabaygan uu tirinayo anigu waxaan isku dayaa mar walba ama shaqadaydu tahay wixii aan manaasib ahayn ama gabay sharci aan ahayn inaan baabi'iyo waxna aan dul dhigo gabayga hadda kolley siduu sheegay wuxuu ka bilaabay waa dawladda kacaankii dee ina mooge iyo waxaas iyo waad maqlayseen balse xaqiiqadaa waxay tahay gabayadu waxay kala leeyihiin level si kasta ha noqotee ninba waxaa la yidhi ceesaantii ceel keentay tusaale haddaan idin siiyo gabayada ugu dhaadheer rag waxaa jiray annagu sida la yaqaano mar raba anigu maadaamay taariikhda iyaga keliya aan gaadhsiiba iga badan tahay inaan hadda cid kale aado ama isaa kale aan aado laakiin tusaale waxaan idiin siinayaa waxaa la helayaa gabayo
annaga oo geel soo dhacnay waxaa weeyaan mataqaanaa dadna laynay geelidiioo gacanta aanu ku hayno oo goobaale nimankii lahaa guursan mahayaane goobaale nimankii lahaa guga maxay maali aan leenahay ayaa inta la dhegadhegeeyo shaksiyaad yaryar waxaa weeyaan maaragtay dagaal marka la galo dad baa ku dhinta mar walba laakiin guushiyay raacday baa mataqaanaa mar walba cidda dhimashadu ay ku badato ayaa laga guulaysan jiray nimankaas marka waxay dabeeca u lahaayeen in moor aan guulaysano oo xoolihii la tagno ay dhegadhegeeyaan wixii goobtaas dagaalka nagaga dhaawacmay ama ku dhintay hadday rabaanna wax kale ku tarsadaan kadibna 4-5 nin war miyaan saa iyo saa la yeelin war miyaan hebel iyo hebel dhimanin haddaba intaas oo kumanaan baanu anagu meersanay tusaale bal hadda waxaan idin tusayaa jilmad wax ka yarna maanaan anagu isticmaali jirin ama iyagii oo dhintay oo sida maadha u daadsan ama iyagii oo wuxuu yidhi kuman dhibile kuman dhiciyey oo soo gediyey dhaysta iyo kuman intay dhala yihiin dhiilka lagu maalo iyo kuman dhufaan go-an ahoo dheeg u adkaaday iyo kuman intay dhaadan tahay dhana la fuudsiiyey iyo kuman dhalaalayo oo dhogor garaaroobay intaasoo la dhooldhooliyo lana dhaqaaleeyey oo dhimbiisha dhaameelka iyo dhaayin guranaysa dheelmitaanka uma dhuumanina waa u dharaarsaday maxay caddaynaysaa marka xitaa timeka ama waktiyaha geela aanu qaadnabaa gabayadeeda ku cad wuxuu ka yaabayaa ninkaa geela gabayga tirinayaa in la yidhaahdo ama waad mirtay ama xilli aan manaasib ahayn bay ahayd ama diyaar umaanan ahayn waana soo gaadeen muxuu uga baahan yahay ereyga intaas oo la dhooldhooliyo lana dhaqaaleeyey oo dhimbiisha dhaameelka iyo dhaayin guranaysay dheelmitaanka uma dhuumanina waa u dharaarsaday anoo dhirifsan goortaan dhex galayna soo dhabaandhabaye bal fiiri macnaha xitaa qaabkii humbaalaynta ahaa ee uu ku dhex galay war ma duushaa markaan leeyahay ciyaar baydin moodi qaabkii uu u dhex galay buu xitaa tilmaamayaa dheelmitaanka uma dhuumanina waa u dharaarsaday anoo dhirifsan goortaan dhex galay soo dhabaandhabaye waayahay wuxuu yi dhamal aadan dheh iyo amiir sowma dhicin waayin waa kuwii ku dhici waayey ina ay waxa weeyaan mataqaanaa ay wax ka qabtaan ama ay waxa weeyaan ay ka dhiidhiyaan baa laga hadlayaa dhinaca marka kumaamkumka marka la isla aadayo waa ka kumaamkum badnayn oo kumamkan la isku jilmaynayo kuman marka lagu leeyahay waa kala gedigedi ama kala noocnooc gabayo badan oo kalena waad maqli doontaan oo kumaamkumkaasi ku jiraan oo la faruug ka mid yahay oo waxa weeyaan uu ka mid yahay waaya haddaba gundhig baa jira anigu mar walba gabaygaan ku ataago weli gabayga ma bilaabin gundhigaas gabaygaasi waa bilowga barnaamijka furitaanka gabaygayga sababtan waan idin caddaynayaa waxau idin tusayaa taariikhdii gumaysiga ku horreysay iyo midii ka dambeysay iyo waxaan kala ahaan jirnay iyo tirada geelasha oo aan idiin macneeya mar walba waayahay muxuu leeyahay marka awowgay waxaa dhacday qamaan weydinkii ogaa inuu lahaa doordir weeye hadduu duulan soo bixiyo dirnimada waanu aqoonsanayn reerkan waxaa dhacday inay yidhaahdaan annagu dir ma nihiin ee carab baan gallaa oo durriyad baan nahay kadib waa la isugu yeedhay xilliga ingiriiskii waxoogaha shaqshaqeeyaan kolkii ay isdhiibeen ninkii suldaankii wardheer ayaa iskugu yeedhay ibraahim waxaa weeyaan may wuxuu ahaa ninkii la odhan jiray suldaan isagaa ahaa laakiin wuxuu ahaa xarbi dheere awowgii weeye muxuu leeyahay marka war taariikhdan duugga amarkaan dib uga faalloonno geed la isugu yeedhay baa ul saa loo dhaxaystaa ul baa lala dhex taagan yahay door oo waxa weeyaan garxajis ah wari dhegaystu leeyahay garxajisow gaal iyo how wada gaal ku dhalay
taariikhdan duuga ah markaan dib uga faalloono diiwaanka waxa kugu yaala waa dir baan nahay taasaan annagu kuu gelinay waxaad rabtaa ahow maantana durriyad baa nahaad nagula doodeen inaanu carab gallo haddana inaad dad noo sheegataan waa dayuusnimo adoo aabbahaa diidi baa dooni ruux kale inaad qabiilo kale sheegto carab baan ahay dhahayd sheekh saxaaq wixii ka dambeeyey waa diidan tahay adoo aabbahaa diidi baa dooni ruux kale duqii idin dhalaad meel cidla kaga dareerteen markaas hadday saas tahay haddaad aabbahaa inkirto iyo dhalashadaada dee aabbaha adoo cidlo uga tegay la mid tahay duqii idin dhalaad meel cidlo ah uga dareerteen wuxuu gaalku soo degayna waa degeladaydii liq baa laleeyahay dhulkan waxba kuma lihid balse anigu buu leeyahay dooxada hargeysa iyo berbere waanigii degay waa goormaha daba lafaruug intay ku taallaa berbere kaamilkeeda ku taalla gabayga lafaruug laga tiriyo ugaaskan waan idin marin doonaa dooxada hargeysa iyo berbere waanigii degay damaashaadka waataan ku maray labada daamood daksi iyo sidii koronkorro unbaa darayga taaleeni dubaaxdiisa iyo jiidhka iyo daribta geeliinna dugaagiyaadka cunaa noo ducayn jiray daad xoorta waa taallafuu dibadda yaallin dambarkiisi waa laga harqaday geelii roob da-ay bal fiiri roob da-ay baa loola baxayay lafaruugna dabkaan kugu shidaya degadii baa taal 18 bilood hashi ku rintay waa lagu soo dhur jiray 4 binijoho garxajis meeshu doonaha joogo waa lafaruug waa berbera dusheeda badda gowtiyadeeda inay ku dhunteen gabayga ay ku jirtaan idin soo wada muxuu yidhi marka lafaruugna dabkaan kugu shidaya degadii baa taal dayr adag intii loo dhigay baan doonay kii hadhay kii la soo qabtay waa la xareeyey kii kalena waa lagu maqan yahay dayr adag intii loo dhigay baan doonay kii hadhay sanga duubi weyn iyo darmaan orodka sii daysa waa gamaan cag fudud sanga duubi weyn iyo darmaan orodka sii daysa dabre celinta waa tii ay farduhu idin dul joogeen war ma waalantihiin intay u socotaan camal dabre celinta waa tii ay farduhu idin dul joogeen idinka oon dagaal hidin karin dumarna aan dhaamin waatay dabacayuunow lahayd ma igu dirirtaan duqaydiinnu way wada og tahay dirirtii maalgo kaasna waa geeli maalgo wallahi maal waa ogaadeenki wallahi maal waa go maalgo bay yidhaahdeen duqaydiinnu way wada og tahay dirirtii maalgo laakiin waa idinka qarinayaan weeyaan gaala jabkeeda waa qasa doorku ma sheegtaan jabkooga nimankan garxajisku markay wax ku dhacaan dharbaxa aan ku dhufanno ma sheegaan waxa ku dhacay caruurta macnaha qarniga jiilkan ka hadda wiilashaan waxay u qabaan rag awyaashood soo wada cadaysan jiray inaanu nahay odayaashaasna qayaamo waxay ku yihiin intay marka kasta oonu gawawarno geed hoostii fadhiistaan ay wax jacburiyaan ay wax iska sheegaan ayay jiilka ka dambeeya ceebta iska dulqaadayna usoo gudbinayaan war dalkiina iyo deegaankiina iyo dunyadiina ka muuqan lahayd duqaydiinnu way wada og tahay dibirtii maalgo indha badan dool laguma helin daaqsin iyo ceel ma aha indha badana iyo indha badan baa la kala yidhaahdaa midna magac dhidig baa ku jira midna indha badan waa kaa indha badan marka ma aha qaybta aan haysano caawa indha badan dool laguma helin daaqsin iyo ceel waa geeli imsaad waa geeli afraad baan idin wadaa duq iyo doomba waa u wada dhannaa duxurka iyo duur allaba waa dagaal aad gashay iyo diriir aqoonteed ina kiciya caydhi baqaha dadab u yacdeen dibna looma arag xoola aad dibad ku raacdaan danaakiriyow ciisaha waa taa diba istaagteen duxna kuma tarin oo iyaba waa horaan dilay kow bal waxaa fiiri haddaba saa hadday tahay u garnaqsanayaa haddaba saa haddii tuu leeyahay war indha badan abti badan bay la baxday marka arabtow waxii celiya waa rabtow waxii celiya waa rabtow labaan caruurta u maaleeya celiya wiilasha abtiga loo ahaa haddaba indha badan abti badan raggii kugu dirqiyey looma durxulo war dabar iyo hoggaan iyo anoo dacayba kuu yeelay haa war indha badan abti badan raggii kugu dirqiyey looma durxulo deglihiyaa anigaa ku baday dud xamaaliga
haddii kale xoolaa dhaqan lahayd deglaha fiiri magaca ii door xagu ka yimiday xoolihii baanu ka qaadnay guriga yagaan keensannay maanta wardhafoor buu ku yaalaa maanta ceelasheeda fiiri bal waxaad maanta fiirisaa malayku sasabani uunyood bulaale sulul sagag bal fiiri every fucking 5 hour waxaa ka fusha 550,000 oo halaad oo boorkeedu madow yahay markaad fidiyoyaashaa daawato waxaad gelisaa arre garxajis hadda maba garanaya ceelashaa lagu dagaalami jiray bulaale gabayadooda kusoo laalaabteen bulaale meesha ka fadhiyaan maanta waad ogtihiin ceelka ugu dhow buu ahaa markay oomaan ceelka ay biyaha u dirsan jireen ayuu ahaa dheegow haddii lagu dhalo duuxi tahay yoonis dhagax buur haddaad joogtid iyo dhanihii huuraale abtiyow bal fiiri abtiyow wixii nagu dhacaan kuu dhambalayaaye waa dhanqalan carruurtii oona way dhiman dhex yar looma dhiibeen ritiga dhowr habeen dhixiye ninkan ceelal dhaadheer lahayn ceeb alla u dhigay inkastooysan dhaqan noo ahayn dhiisha jabinteedu dhaan dambaan walle feetinoog cidina kuu dhiiban ceel markii laga ooday ee gabayaasha ogaadeen ay mataqaanaa dhammaan ceelasha bannaanka inay ka yihiin tilmaamayaan taariikhdaasaan ku hayno ayaa awowgii oo gabayaashii ugu weynaana waxay taariikhdu qoraysaa 120 awr oo feetin oo ninkii feetin ahaaye gabayaaga ahaa oo waxa weeyaan mataan ciideed iyo ay isku xiliyaha ahaayeen ayaa la yidhi feetinow niyow 120 awr noo soo dhaami feetin bulaala idinku dhow buu yidhi reer saxaaq baale ananin reer cabdillah abaan ahaye niman yahow nimankaasaan idiin araaraynaya haddii kale heshiiskii waad jabiseen baa la dhihi oon baa jiro oo meel waa isdhiibeen feetin dhaankii markuu yimidee elafati iyo bannaan buu ula fulay 120 awr oo roray abuu helay dadkii waday iyo awrtiina dib umuusan soo celinin abwaankanina ninkii deeg ahay ee abwaankii weynaa ee inuu ogaadeen ayuu abti u yahay hadday gabadh habar yoonisi ku dhashay abtiyoow noo gurmo dheegow haddii lagu dhalood dhuuxi tahay yoonis dhagax buur haddaad joogtid iyo dhanihii huuraale abtiyow wixii nagu dhacaan kuu dhambalayaaye waa dhanqalan carruurtii oona way dhiman dhex yar looma dhiibeen ritiga dhowr habeen dhixiye ninkaan ceelal dhaadheer lahayn ceeb alla u dhigay inkastooysan dhaqan noo ahayn dhiisha jabinteedu feetin dhiilihii buu jajabiyey ina gumeediyow ina gumeed ku dhalay dhiilahaagii baan jajabiyey anigoo dhiila lays ah sidee marka waa yahaye caydh yahow caydh ku dhalay maygiila qaadan kartaa awowgaana uu leeyahay inkastooynan dhaqan noo ahayn dhiisha jabinteedu dhaan dambaan walle feetinow cidiba kuu dhiiban ma dhaan dambaan u baahanay waryahay haddaba saas darteed baa oonku xaafadda ku soo laablaabtay bal fiiri geel haddii laga hadlayana maxaynu ku furnay bay ahayd kuman dhacaran kuman dhiciyey oo soo gediyey dhaysta iyo kuman intay bal fiiri ilahay baan kugu dhaariyey kuman dhacaran oo xagaayadii joogta kuman dhiciyey bal fiiri kunkaasaa marka soconaya hawmani kunbuu marka noqonaya yaan haddaba gabayga idinku bargoynini oon maadaamay sidaas ku ahaayeen tamar maadaamay sidaa ku ahaayeen ayuu leeyahay ayuu ku yimiday magacan idur xoolihii markii laga qaatay waxaan idhi noo shaqeeya degla noqda carabta wax ka keena xoolihiina abti iyo waxaan iska daayay waxaad ku heli kartaan qiimo aan la aragoon la maqlino halkii surwaalba waxaan idinka siinaynaa hal neef geel ah ilaa nay qiimo noguma fadhiye kulli markaad isku geysaana waan soo dhici doonaa
toban gabay wax ka badan baanu ku soo aroorinay war dhogorteeda jeel baa rogay ee dharaha fudsiiya war dhiilka uunaha eeginee nirgaha dharaq u sii daaya war dhaqaaleeya nirigtaad ka dhaylaysataana dhagor u qoondaysta dhaqaaleeya gelin waa naga dhexeeya annaga marka miyaan la dhihi karin bini aadankani kuwa gela noo raacay ahaayeen maxaa yeelay dhar iyo waxay rabaan ha ku qaataan meeshan unbaa la geyni ma dhaafinayaan meelihii laga soo dhacay daas waay uu awowgay u leeyahay bal baadilka intan la eg fiiri dhabaha qaaleed dhinaca buushaale xeryahan kaliil hore ka dhacay dhaafin mahayaan intay dhagaxa hoos uga ridaan dhuumin mahayaan nimankii sidee saga dhownaa dhihi mahayaan udhumada markaa inaanu qaban dheedi mahayaan awal hore dhallaan baa idin galay dhuumasho ahaaye intaan dhudaha guleed maro oon col dhan baa leeyo annagoo dhan reeraha dhexdood dhaxa naga eega haye carruurtaa iska soo qaadanaysa waxaan kada annagoo dhan reeraha dhexdood dhaaxa naga eega arladiina dheelkiiyo intay dhaxanta baas joogto dhehey waxaan kaa maqnahay dhibaca dayreed wixii haddii dhaxantu baaba'do waan kusoo kaxaysanaya dhehey waxaan kaa maqnahay dhibica dayreeda kaa dhaystii intuu dhalaya sii raaca dhurwaayaya waxay ga siisaneen dhar iyo soortoona xitaa dharka aad noo keenaysaan carabta uma gudbin kartaan baan leenahay dhurwaayayo waxay ga siisaneen dhan iyo sar dhaamiyaha ritigayaan bal fiiri ilaahay baan kugu dhaariyey dheega cusbada yaan lagaga rarin dhaamiyaha awrka ma nin baa waxaa xerada ugu jira lagala taliyaa dhiilka unaha eegina ee nirgaha dharaq u sii daaya bal fiiri ilaahay baan kugu dhaariyey nirigta aad ka dhaylaysataana dhogor u qoondaysta dhogorteeda jeel baa rogay dharaha fuudsiiya dhaqaaleeya gelinu waa naga dhexeeya ina gumeediyo war ma duushaa markaan leema ciyaar baydin moodi taas waay marka uu u leeyahay awowgay waxaan rabaa gabayada inaan sugu keen xidhi run ahaanshahooda buu u leeyahay indha badan abti badan raggii kugu dirqiyey looma duul xuro war dabar deglaha iyo anigaa ku baday duud xamaaliga dabar iyo hoggaan iyo anoo dacayba ku yeelay oo duudka kaa rarnahayuu gaalku soo degay waaya haddaba gaalka hadduu soo degay intaan eegay diinka iyo sharciga iyo daliilkooda dembigii markii aan nacay ee aan iskaba daayey dib jirkii iyo miskiinkii markuu nabad ku daashooday war dumarkaa ilowshaha yaqaan daalka soo mare e dayax iyo cadceed lama dedo iyo nimankan daarood ee saddexda hadduu ruuxda firagaa la dili weyo marka uu leeyahay macnaha nimankan daarood waa halqabsiga une dee ninku inuu ogaadeen buu afkiis ku hadlay lakin waa nin daarood ah waaya cidda laakiin uu la hadlayay geela laga soo dhacay waa garxajis sababtaa u faahfaahinayo waa inuuna u qaadanin inaan daarood lib u leeyahay ku faanayo waa gabay awowgey waaya